habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya oo goobo hor la qabsatay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay waxaanu eegi doonaa sababaha keenay in al-shabaab ay soo laba kaclayso qodobada kale ee caawa ee wararka ku jirna waxa kamid ah kadib markii duufaan ay ku dhufatay haddana daadad ay u raaceen ugu yaraan 1,000 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen wadanka Mozambique iyadoo 100 kunna ay halis ku jiraan iyadoo New Zealand ay xusayso dadkii lagu laayay masaajidada waxaanu eegi doonaa sida dhalinyaradu ay uga jawaabeen xasuuqaasi waa muuqaal lagu qaaday mobile magaalada caasimadda ee u ah Ghana waxaan la kulmi doonaa sawir qaadahan ka dambeeyay sawiradan quruxda badan kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka xaaladda magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir waqooyiga uga beegan caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya ayaa maanta degan kadib markii dagaal xalay halkaasi uu ku dhexmaray ciidamo dawladda ka tirsan iyo kooxda al-shabaab oo dagaalka soo qaaday waxa uu suurto gashay baa la yiri in ay qabsadaan xarunta degmada Balcad iyo saldhigga booliiska halkaasi oo ay ka sii daayeen maxaabiis ku xirnay kooxdii weerarka qaaday ayaa si iskooda uga baxay magaalada xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda dhimasho aan la soo sheegin laakiin burbur badan halkaasi oo uu jiro oo hantiyad maalmihii ugu dambeeyay waxa jirtay in ay soo baxayeen cabashooyin ah in ciidamada dawladda Soomaaliya ee ciidanka xooga ay ka soo baxeen goobo ay fadhiyeen kadib markii mushaar la'aan ay la soo gudboonaatay ciidamada ayaa ka soo baxay deegaanka Dhanaane oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo shabaabku hadda ay la wareegeen laakiin ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gaashaanka u daruuray sheegashadaasi waxaana ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo dhinaca kale ciidamada Kenya oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM ayaa wada dhaqaaqay ay dib uga baxayeen xerooyin ay horay u jeegeen markaasi iyagoo ka baxay deegaanka la yiraahdo Bursaar oo ka tirsan gobolka Gado waxaana horay sidoo kale uga baxeen deegaanka kale ee la yiraahdo Faafaxdhuun haddaba xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo sababaha dhaliyay dhaqaaqyadan ciidanka waxa qadka si toos ah ugu jira magaalada Muqdisho Dr. Xasan Sheekh Cali oo arrimaha siyaasadda iyo ammaanka Soomaaliya ka faalooda Dr. Xasan marka ugu horeysa maxaan ku tilmaami karnaa dhaqaaqyadan ciidamada بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku magacaabi karnaa laba qaybood qaybta hore ah mataqaana qaybtan ciidamada ajnabiga ah qaybtaasi wadamada soo dirsada iyo dawladaha ay ka socdaan ayaa garanaya istaraatiijiyada ay ka leeyihiin ciidamadan inkastoo la dhahay waxay ku joogaan mandate-ka ama ogolaanshaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ama golaha amniga haddana dawladihii soo diray ayaa sida ay doonaan u isticmaala marka dawladda Kenya istaraatiijiyada ay leedahay ay ka shaqeysaa haday soo dirayso iyo haday la baxayso ciidankeeda ayada iskale taa shaqadeena maaha waxaan u soo jeesanaynaa tan Soomaaliya oo ah mataqaana jahawadarka ka jira oo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay ku socoto wadadii burburka sida aad arkaysaan oo ciidamadii meel kasta ay ka imaanayaan oo ay furmay ka soo baxayaan ha noqoto command and control-ka oo ciidamada oo ku dhacay dib u dhac ku dhacay iyo habacsanaan iyo daryeel la'aan iyo mataqaana la'aan strategic policy oo aan jirin oo ilaa hadda la raaci karo sababtuna waxay ka tahay ama tusaale dhibaatadan waxaa keenay security compactigi lagu soo saxay London ayaa ciidamada Soomaalida kala daadiyay oo wuxuu ka dhigay ciidamo beelaysan oo 6 gobol maamul goboleed la kala raacinayo tusaale ahaan guutadan degan Shabeellada Dhexe
waxaa la raaciyay hirshabeelle qaybta kaleeto degan shabeellada hoosena waxaa la raaciyay koonfur galbeed marka koonfur galbeedna maamul dowladeed oo hanan kara guutadaas oo baahideeda dabooli kara ma jiro hirshabeelle sidaas oo kaleeto iyadana guutada taal iyadana cid hogaamin karta ma jirto dr xasan ma hayna caddayn in heshiiskii ammaanka ee London uu wax kala daadiyay laakiin waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo habacsanaantan aad sheegayso xageed ka keentay ra'iisul wasaaraha waan dhageysanaynay hadalkiisu waxa uu yiri bil walba mushaarkooda maalinta ay kow ay tahay baa la siiyaa lacagtooda hadalkaasina waa been mushaarkooda way qaataan inay heshiiskii London inuu kala daadiyay dokumentiga uu ku cadaa laana waxa ku qoreed maamul goboleed kasta in 3,000 oo askari oo ciidamada lugta iyo 500 oo commandos loo sameeynayo kaasoo ka soo horjeeda dastuurka qaranka taasi waa taasa hadalka kale ninka aad sheegtay hadalkiisu wuxuu iska ahaa waxa la yiraahdo media consumption dadka oo caadiga ayaa loogu talagalay in loo sheego moogii xaqiiqadu waa ka duwan tahay laana waad ogtahay oo dhanaana ay ciidamadu joogan guutida shabeellada hoose haddii balcadna haddii la qabsaday xamarna xaalkiis aan ognahay sida uu yahay ninkaasi nin oo hadda xaqiiqada ka hadlaya ma aha xaqiiqada kama hadli kariyo midda kale to arintan waxa iskale waan gartay xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska madaxweynaha ayaa iskale iyo ra'iisul wasaaraha ka hadlaysa saafinayo golaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha ka hadlaysa nin caadi ma aha waa mas'uul hadalkiisana waa hadal maaragtay lagula xisaabtamayo adigu laakiin cabsi meed ka qabtaa in al-shabaab ay muqdisho soo galayso hadda balcad baa xalay dagaal ka dhacayo ay qabsatay baa la yiri in kooban sif arrinkaasi waa sidaas sababtoo ah waxay tahay systemka dowladnimada ayaa hoos u socda oo waxa kala daadanaya wax alla wixii Soomaalida heshiis ku ahayd hadii aan siyaasadda heshiis laga ahayn na amnigu wuxuu noqonayaa mid kala daato noqonayaa marka sidaan hore kuugu sheegay marka ciidamadan masalan oo militariga Soomaaliya waxaa uu qabaa dastuurku wasaaradda gaashaandhigu inay tahay ciidamo ay leeyihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya laakiin heshiiskaas laga keenay 17kii mataqaanaa May oo lagu soo saxay London wuxuu ahaa mid lagu kala dhantaalay ciidamadii halkan ka jiray hoggaan xumana waa ka dhacday strategic policy-na ma jiro golihii tusaale ahaan golihii amniga qarankuna ma shaqeeyo oo taqriiban hal sano ka hor ayaa fadhiga ugu dambeeyay qaateen marka meeshan waxaan jirin aragti siyaasadeed iyo istiraatiijiyad iyo hoggaan qaran oo sax oo ciidamada ma jiro aad iyo aad baad mahadsantahay dr xasan sheekh cali oo si toosa isagoo jooga magaalada muqdisho nooga waramayay arrimaha amniga ee Soomaaliya markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa la kulmaysa golaheeda wasiirada sidii ay uga xaajoon lahaayeen talaabooyinka xiga ee ay ka sameynayaan Brexit kadib markii qorshaheedii uu shaki galiyay gudoomiyaha baarlamaanka UK John Bercow gudoomiyaha ayaa hor istaagay shalay cod kale oo la qaadi lahaa oo heshiiska Brexit ah Miss May waxa ay ku tala jirtay mar saddexaad in baarlamaanka ay hor keento heshiiska Yurub ay la gashay oo laba jeer hore loo diiday dalka Netherlands qof saddexaad ayaa loo xiray weerarkii shalay ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taal magaalada Utrecht halkaas oo 3 qof lagu dilay 5 kalena lagu dhaawacay qof looga shakisan yahay inuu Turki yahay qofka looga shakisan yahay oo Turkiya oo la yiraahdo Gökmen Tanis ayaa la qabtay 7 saacadood kadib markii weerarku uu dhacay tirada dadkii ku dhintay duufaanka Aida ee dalka Mozambique ayaa noqon karta mid ka sareysa 1,000 sida uu sheegay madaxweynaha wadankaasi qulqulka biyaha iyo daadadka ayaa sii kordhaya iyadoo hay'adaha gargaarkuna ay sheegayaan in 100,000 oo qof ay halis ku jiraan duufaantan ayaa sidoo kale waxa ay saameysay dalalka deriska la gaar ahaan Zimbabwe halkaas oo iyana ku dhawaad 100 qof ay dhinteen Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa dukaamo aan albaab lahayn muraayadaha daaqadaha oo wadada ku daadsan saqafyo maran oo ka qaadmay guryihii ay ku yiileen halkani waa Ba'ira waana meesha loo malaynaya inay ka dhaceen qasaaraha ugu weyn inkastoo dhibaatada dhulka ka jirta ay tahay mid xun ayaa haddana hawada waxa aad ka arki kartaa dhibaatada inta ay leeg tahay Ba'ira waa dekada ugu weyn ee Mozambique ee dhacda xeebta qayb ka mid ah biyaha ayay ka hoos martay kadib markii ay duufaantu ku dhufatay xaafadaha aadka loo degan yahay ee duleedka magaaladana biyaha ayaa ka hoos maray ma jirta cid ogsoon qasaaraha nafeed ee halkan ka dhacay lamiyeeriyada duulaya ayaa dadka dilay dadka qaar cisbitaalada ayay ku jiraan xaaladdu way xun tahay si fiican wax uma cunno si fiicanna uma seexanno wax guryo ana ma lihin
laga soo bilaabo xaafadaha duufaanta Idai ayaa ku dhufatay ilaa gudaha mana aysan ku hakan xuduudda ee waxa ay u sii gudubtay dalka dariska ah ee Zimbabwe dhulka oo kala sareeya dhagaxyo iyo biyo ayaa go'doomiya boqolaal qof lamaanahan waayeelka ah waxay isku dayeen inay la xiriiraan xubno ka tirsan qoyskooda waxa uu sheegayaa in uu isku dayay in uu waco qoyskiisa oo ku go'doonsan Jumanimani Zimbabwe si uu u ogaado inay ka badbaadeen duufaanta balse ma uusan helin kooxaha samabixintu waxay isku dayayaan inay badbaadiyaan dadka ku go'doomay biyaha sii kordhaya dadka ayay geedaha ka soo dejinayaan waxayna caawinayaan cunug yar oo aan faraxsanayn balse dhulka qalalan marka la tago waxa caqabada tan xigta ay noqonaysaa gaajo iyo hoy la'aan haddaba dhinaca waddanka Zimbabwe haddii aynu eegno waxa lagu soo warramayaa in xaaladdu ay aad u liidato saacadihii ugu dambeeyay sida ay ku soo warramayaan wariyaasha BBC-da ee halkaas ku sugan waxa muuqaaladani ay noqdeen kuwii ugu dambeeyay noo soo direen oo saameyn weyn ku yeeshay halkaasi duufaantii iyo daadadkii wada socday waxa ay gooyeen dhul weyn oo baaxad leh sawiradan oo helicopter lagu qaaday oo dadkii halkaasi ku noolaa bulshooyinkii la sheegayo inay kala go'doomeen qaar badanna ay u baahan yihiin gargaar oo ay lugaynayaan jidad dhaadheer safaf dhaadheer iyagoo ku jira oo dhabarka ku sita in caruurtoodii hooyooyinka halkaasi oo ay doonayaan goobo ay ka helaan ammaan iyo weliba cunto iyo dawooyin si ay halkaasi uga helaan weli waxay noo soo socdaa oo qaybta dambe ee barnaamijka caawiya caalamka aad ku daawan doontaan hal abuur dhalinyaro ah oo muuqaalo cajiib ah ku qaada telefoonka gacanta waxaanu eegi doonaa sawiradiisa ugu quruxda badan ee dhawaan uu qaaday weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa goobo hor le qabsatay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay kadib markii duufaan iyo daadad wata ay ku dhufteen waddanka Mozambique waxa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen ilaa 1,000 qof in ka badan 100,000na ay halis ay ku jiraan waddankaasi iyadoo dalka New Zealand looga barordiiqayo weerarkii lagu qaaday labadii masaajid ee ku yaalay magaalada Christchurch ayaa waxaanu eegaynaa balqaabka ay dhalinyaradu uga jawaabeen xasuuqii ka dhacay labadaasi masaajid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya waa barordiiqa musanoo fariin diraysa 50 qof kabahood oo cadcad waa 50kii qof ee ku dhintay weerarka carruur ayaana ku jirtay iyada oo dad badani ka fakarayaan dhibaatadan qalbiyada dadkana xanuujisay waxa muuqata in dilaagaasi aanu dad ku arkaynin masaajidada meel uu bartilmaansado ayay ula muuqatay carruurtuna la yal ayay la ahayd barordiiqan guud ahaanba Christchurch waxa lagu xasuusanayaa halaagaas 5 ka mid ah da'yar 16 jir ka yar ayay ahaayeen waxa ka mid ahaa 3 jir iyo 4 jir noloshii fursad uma uu siinin Sayid Mille 14 jir ayuu ahaa ilaahay ha u naxariisto ayuu aabihii yidhi saaxiibkiina wuu niyad jabsan yahay subaxnimadii marka warka la xaqiijiyay waan ka yaxyaxay naxdin ayay ahayd dad badan ayaan aqaanay aadna waa loo jeclaa waa wax laga caroodo in jaaliyadan sidaas loo weeraro waa wax laga naxo xaqiiqdii ma garanayo waxaan ku fasiro qofna ma garanayo waxa uu ku hadlo laakiin wiilkan oo 17 jir ahi waxa uu yidhi da'yartu waa inay helaan cod ay ku caawiyaan si dadku u bogsado waan ogahay dugsigayga saameyn weyn ayay ku yeelatay arday badan ayaa dadkoodii ku waayay weerarkan waxaan doonayaa inay ogaadaan in dugsigu barbar taagan yahay ogow hawshanaan horkacaya waxay muujinaysaa in nacaybku aanu nacayb kale meesha ka saarin laakiin jacayl un lagaga jawaabi karayo tani waa midhihii shaqada uu qabtay
isu soo bax ballaadhan ayuu abaabulay fursad ayay noqotay ay kumanaan dhallinyaro ahi ugu dabaaldegaan nolosha waa sharaf sida aan isugu nimi si aan u muujino taageeridayada gaar ahaan ay dad da'yar ah iyo arday dugsi sare sameeyeen runtii waa wax wanaagsan dugsiyada iminka waxaa jooga shaqaale caafimaad oo da'yarta ka caawinaya saamaynta halaaggii dhacay ku yeeshay waa aqoonsi inaan qofna dhex marin albaabada murugada iyo baroordiiqa gaar ahaan da'yartu mahadsanid cabdixaafid bal markana xasuusnow wararka ugu dambeeyey ee BBC Somali waxa aad ka heli kartaa haddii aad u baahato oo ay ku dhaafaan barnaamijyada bbc.com/somali halkaasi oo aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad fara badan mid ka mid ah saddexdii caruur ah ee wadanka Pakistan ku nool kuriimo xumo ayaa ku dhacda arrintani khatar kuma ahan oo kaliya nolosha malaayiin caruura wadankaasi balse waxa bangiga adduunka uu ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha wadankaasi Pakistan ka hor istaagaya inuu noqdo wadan dhaqaalihiisu uu koro oo ka mid noqdo wadamada adduunka xagga dhaqaalaha hore uga maray Ismaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya Shakiil waa 3 jir umana eka da'daasi miisaankiisu waa kala bar intii laga rabay inuu ahaado nafaqa darro ba'an ayaa haysa hadda waxaa istaagay korriimadiisa saamayn dheer ayayna ku leedahay carruurta korimadoodu way yar tahay maskaxdoodu way ka shaqo yar tahay marka la barbar dhigo cunuga caadiga waxay kaloo saamaynaysaa awooddiisa socod ma socon karo xitaa 3 jir bakistaan oo dhan 3dii cunug mid ka mid ah ayaan korayn mana ahan arrin caafimaad oo keliya balse saamayn dhaqaale ayay ku leedahay dalka haddii cunugu kori waayo waxaa ku adkaanaya waxbarashada la qabsiga iyo inuu ku koro meel ay ka jiraan isbedelo taasina waxay leedahay saamayn dhaqaale oo xoogan waxaa lagu qiyaasaa inay GDP-ga Pakistan ku leedahay 2 ilaa 3 boqolkiiba saamayn ah wuxuu dalku luminayaa awood wax soo saar weyn celcelis ahaan tirada carruurta Pakistan ee korriimadu ka xumaato in yar ayay hoos u dhacday 5 sano ee la soo dhaafay balse weli waxay ka mid tahay wadamada ugu badan adduunka Shakiil hooyadii waxay la mid tahay haween badan oo reer miyi ah kuwaasi oo yaraan lagu guursaday 9 carruur ayay leedahay ninkeedana waxaa ku adag in uu quudiyo qoyskiisa waxa kaliya oo aan haysano oo aan cuni karno waa rooti garoor iyo basbaas ma awoodno kalluun digaag iyo hilib qaybta dhalmada isbitaalka waxaa ku jira hooyooyin badan oo nafaqa darro haysa taasina waxa ay ka dhigan tahay in carruurtooda ay korriimada ka xumaanayso waa arrin ay tahay in Pakistan ay ka gudubto iyagoo eegaya dadkooda iyo dalkooda mar walba waxaad nagala socon kartaan oo aad ka heli kartaan barnaamijkan YouTube-ka BBC-da iyo waliba BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba waxaad nagala socon kartaan oo aad booqan kartaan boggayaga Twitter-ka iyo Instagram-ka ee BBC Somali bal markana haddii aynu eegno ciyaaraha iyo caawa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa UEFA waxay ku ogtay dacwad la xiriirta dhaqan xumo isagoo u dabaaldegayay guushii ay Atletico Madrid uga badiyeen 16 kooxood ee isugu soo haray horyaalka Yurub 34 jirkan ayaa u muuqday inuu dhadhaajinayo tababaraha kooxda Atletico Diego Simeone isagoo markaasi ku jeestay taageerayaasha isla markaana qaab daran markaasi u muuqday tartankaasi labadii eberka ay kaga badiyaan Atletico ciyaaryahanka Liverpool khadka dhexe uga ciyaaro Shaqiri ayaa waxaa laga saaray kooxda Switzerland ciyaartooda 2020 ee tartanka European Championship-ka dhaawac soo gaaray darteed tababaraha Switzerland Vladimir Petkovic ayaa maanta waxa uu magacaabi doonaa cidda bedeli doonta Shaqiri ciyaarta furitaanka ee ay Georgia la leeyihiin maalinta Sabtida ee soo socota iyo midda 3 maalmood kadib ay la yeelan doonaan kooxda wadanka Denmark
bal markana aynu eegno dhinaca tiknolojiyadda laakiin telefoonka gacanta lagu isticmaalo iminka looma isticmaalo oo keliya in wax lagu waco ama fariin qoraala lagu diro hal abuur aad u dacyar oo reer Ghana ah oo lagu magacaabo Prince Gayasi ayaa telefoonkiisa waxa uu isticmaalayaa in uu ku sameeyo farshaxan cajiib ah oo uu doonayo inuu ku dhiirigeliyo caruurta iyo waliba dhalinyarada kale dhawaan ayaa waxa uu qayb ka ahaa mashruuc ay shirkadda Apple maalgelisay oo markaasi uu sheegay in uu fursad markaasi ka helay inuu caalamka baro waxa ay tahay iyo qaabka ay u eg tahay magaalada Accra ee caasimadda wadankiisa Ghana. waxa hawshayda muujinaya waa midabada aan isticmaalo fikradda iyo habdhaca sheekada aan sheegayo iyo weliba in aan ahay hal abuur muuqaal wax ku sheega oo jooga Ghana kana sheekaynaya Ghana iyo Afrika. magacaygu waa Prince Gayasi waxaan ahay hal abuur muuqaal sameeya oo Ghana degan. waxaan isticmaalaa oon ku shaqeeyaa iPhone waxaan isticmaalayaa wixii aan heli karo si aan hal abuurnimadayda u muujiyo hal abuurku waa inuu la yimaadaa hindise gaar ah oo cusub xilliyadii aan korayay waxaan arki jiray carruur joogta Jamestown halkaas oo ay hooyaday carruurtan u qaban jirtay bandhigyo si ay uga caawiso inay helaan waxbarasho iyo sidoo kale raashin ay cunaan biyo ay cabaan iyo dhar mar walba oo aan arko carruurtan waxaan ku fakari jiray qaab qisadooda loo wariyo oo dadka kale loogu wariyo si ay u ogaadaan iyo sidoo kale qaab aan u xallili karo dhibaatooyinka carruurtan haysata waxaan ogaaday in hal abuurnimadu tahay jawaabta magaalada Accra aad ayay indhaha iigu furtaa mar kasta oo aan soo tooso waxaan arkaa wax cusub codka sawaxanka dheer ee wadooyinka gawaarida iyo midabada waxbaan duubaa waxaan doonayaa in muuqaaladaydu noqdaan farshaxan loo adeegsan karo in lagu daweeyo dareenka aadanaha waa sababta aan isugu dayo inaan isdhex geliyo oo aan isku lifaaqo midaba kala duwan haddii aad ku nooshahay dalkan Ghana farshaxan ama hal abuurkuba waa hawl adag dadku waxay inta badan ixtiraamaan dadka sawirada ka ganacsada kuwa duuba aroosyada xafladaha guurka iyo munaasabadaha aaska dadkani waxay helaan ixtiraam gaar ah sababtoo ah waxay ugu yaraan qabanayaan shaqo ay dadka halkan degan fahmayaan himiladayda ama yoolkayga ugu muhiimsani waa inaan noqdo mid ka mid ah hal abuurada waaweyn ee Ghana, Afrika iyo weliba in la iga aqoonsado guud ahaan caalamka. wahagaag haddii aan idin dulmaro qodobkii ugu weynaa caawa wararka waxa uu ahaa kooxda al-shabaab oo goobo hor la qabsatay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay wadanka Soomaaliya. ugu dambeyntiina waxaanu idinkaga tagaynaa fikrad cusub oo ka timid Kuuriyada Koonfureed oo gacan ka siinaysa dadka ku mashquulsan telefoonadooda marka ay jidka goynayaan in aanay shil gelin magaalo ku taala koonfurta Kuuriyada Koonfureed waxa ay tijaabinaysaa nidaamkan cusub oo looga hortagayo shilalka marka dadka laamigu ay goynayaan magaalada Ilsan ayaa meelaha nalalka traffic laga gooyo laamiga dhulka nalal ay ka iftiimayaan waxaana qofka marka uu goynayo fariin uga soo dhacaysa mobilkiisa si uu istaago oo aanu baabuur u dardarin arrin cajiiba inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina mar kale waxaad nagala socon kartaan BBC Somali YouTube iyo waliba Facebook iyo bogayaga bbcsomali.com intaanu mar kale habeen dambe dib u kulmayno aniga iyo asxaabta London waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan